قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر waxa qoran wuxuu cuni jiray wuxuu xidhan jiray musqusha siduu gali jiray musqusha markuu galaya labada adinku horeysiin jiray musqusha markuu ku jiro gacantu isticmaali jiray ee wax iskaga meeyri jiray yaani qof noloshiisa wax qarsoon aanay ku jirin waxa qoran kabihiisu inta la kaayeen xidhigta iyo xagga hore midka uu buuraayeen indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn kabtu inay dhogor lahayn iyo inaanay dhogor lahayn saddexda qaybooda kabtu u qaybsato dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nabi maxamed way qorantay alayhi salaatu wasalaam waxa qoran wuxuu mara qaatay midabkay lahaayeen waxa qoran wuxuu cunno cunay waxa qoran wuxuu meel istaagay waxa qoran wuxuu dagaal galay waxa qoran wuxuu qof bini aadam la hadlay waxa qoran wuxuu cibaadaystay waxa qoran wuxuu ummad hogaamiyay waxa qoran nolol shiisa oo dhanba makshuufa dabeetana waxa la leeyahay waa taariikhdii nabi maxamed bal meel ceeb la ka soo saar qof aan taariikhdiisa waxba qarsoonay ee wax wal oo noloshiisa ka mid ah uu ritan yahay oo la tilmaamayo meel ceeb ka soo saar